bismillahi raxmaani raxiim. maanta waxaan rabnaa inaan halkan ku duubno excel oo ah excel schools qeybihiisa kala duwan sida total, average, grade iyo remark. schoolka magaciisa oo kaleeto waxaan u bixinaa aqoomaal. waxaan sameynaynaa inaan u sameyno color, waxyaabahaas waa soo dhamaystirna hadda. wixii waa u sameynay. waxaa sameyno oo kaleeto numberska, waxaa sameynay magacyada iyo waxaa sameynay maadooyinka laga qaato. tusaalahaan waxaa usoo qaadanay 4 maado: science, arabic, islamic studies iyo math. arday walba wuxuu ka keenay axmed xasan oo kaleeto science wuxuu ka keenay 70, canab 75, faarax 70, cali cusmaan 95 iyo khadiijo 55. waxaa sameynaynaa totalka waxaa u sameyn karnaa laba si inaan dhahno marka ugu horeyso equal sum kadib aan soo highlight gareyno maadooyinka 4 maado ahaa, kadib shift 0 aan ku xirno, kadib waxaan dhahaynaa enter. qofkan wuxuu totalka 4 maado 400 laga rabay wuxuu ka keensaday 260. waa jiidaynaa marka si dadka dhan 5 qof iyo hal mar u sameysmato. waa kaasa axmed xasan wuxuu keenay 260, canab jaamac waxay keentay 320 totalka, faarax cabdullaahi wuxuu keenay 295, cali cusmaan wuxuu keenay 380, khadiijo yaasiin waxay keentay 184. intaas waa totalka. marka hab labaad aan ku sameyn karno ayaa sameynaynaa. waa tirinaa kuwii hore. marka habka labaad aan u sameyn doonno waa qaab shortcut ah inaan isku taaban hal mar alt plus inaan sameyn hal mar kadib aan dhahno enter. waa kaas hal mar sidii kusoo hal mar oo adoo wax highlight gareynin oo dooranin maadooyinkii ayaa sameysay. waxaa sameynaysaa alt plus. waxaa dhigaynaa horta meesha totalka ayaa tagaynaa, clusterka ayaa saaraynaa, waxaa dhigaynaa alt plus kadib enter. kadib waa kana dadka dhan ayaa ku jiidaysaa bis. intaasi waa totalka.